kala weydiiyay ninkan maxaa lagu haystaa markaas la yiri 200 oo shilin oo ka Yamaniya bas laga rabaa waxay dhaanaa 200 haystee haddaan 100 siiyo 100 kale ana isku ilaalinaya ee maladaynaya haahu 100 kii laga qaaday janankii waladi waa ninkii jananka ahay gubernatooraha noo ahay nin askariga wuxuu ku beecinaya 2 shilin 200 oo ka Yamaniya halkaas waa ka dhaqaaqo waxaan tagay Dubai ninkii airportka iga qaaday oo igeey guriga la seexdo nin uu la hadlay wuxuu yiri boos banaan ma haysid markaas uu yiri waxa banaan meel kora anigu marka meel kora ma fahmo guriga la igeey 4 sareyrood oo ku xalana oo kaleeta oo 4 nin oo kor jiifto 4 nin hoos jiifto la igeey waxa la yiri wanikaan waa culus yahay korma fuuli kare hoosta la gelinayaa boqol iyo konton waa inuu dhiibaa meesha dadka kala boqol ka dhiibaan waayaha la yiri dantaaba keentay boqolkayga dhiibtay iyo kontonkaygii subaxii waagu haduu bariya aniga bas soo toosay iyo gabdhi gurigu 2 qol oo ka kooban yahay iyo jikada iyo hal qol waxa degan gabdho qolka kaleetana 8 qofood oo rag ah subaxii waagu markuu bariyaan aniga iyo gabdhihii soo toosnay war wiilasha kale maxaa ku dhacay wiilasha kale 5 saac 6 saac ay soo kacaano habeenkii ay jawaanay xirxiraan maalintiina waa jiifa habeenkii markii la gaaray oo subaxii waagu haduu bariyaan soo habeenkii la gaaray dadkii wada seexday gabar aan ugu soo hartay oo meesha fadhis markaas ay raadeen ma seexatay adigu markaas ay tiri maya anigu jiif ma lihiyo gabar bari shaqo tagaysa aan booskeeda seexan rabaa subax baan jiifta ma hayso halkaas waa ka tagay Mareykanka bal alla markaan Mareykan tagay aalay dadka cusubo warshad hilibka qasha ay horta ka soo shaqeeyaan kadib ay magaalada ku soo noqdaan 7 maalmood oo rotation la furay markaan rotation dhamaystay waxa la geeyay halkii warshadu ku tiil irideeda qofkii iga hor yimid oo igu horeeyon arkay nin Soomaaliya abukaata ahay oo maxkamadda badbaadada lawyer ka ahaa jiray oo 2 midiyood iyo soofo wata oo meesha ay ugu jiraan ayaa iga hor yimid adeeradu maxaa qabanaysaa maxaa qabanaysaa maxay tahay hilibka qalaya aniga markaan gudaha galay la yiri adiga iyo 2 Suudaan oo xoog aad leedihiin midiyaa la idiga dhibi ma meel ka sareysa la idiga geeyay ajalada hilibka sidda la yiri mar ay istaag noqotaa halka kartoon waxa ku jira 70 kiilo 400 oo kartoon 1 minute dajinaysaan ajaladu markay toostana waa ku celinaysaa sidaan maalintoona istiil u lahaa anigoo maalintii qorraxu markuu dhacay saa u socdo sida uu istaagi karay ariirinta ka soo bax bishu markay dhamaataa waxa la yiri $1,300 aad shaqaysatay graduation dadku ugu horeeyo oo lacagta helaabata 500 ilmahayga cunay 200 iyo 300 ana transport ka dhigtay 9 qofood oo mid maalin shahaadi siiyay iyo mid maalin meel iga bixiyay iyo mid maalin waxii taagay iyo mid qaraabana ay soo wacay waxay ka wada sinaayeen mar kasta ay hadalka dhameystaan aniga maanta kaliya ku soo waco wiliga dad ku soo waco war boqol ay hartay boqolkiiba deeqa waa ka soo laabtay xamaraanay maday waxaan joogaa 7 sano joogaa ma bixin wiilasha dhalinyarada mid walba waxa uu yiraahdaa adeer goorma noqonayso Mareykan ku noqonay anigana waxa igu taal inaan baadiyasi aado xagga u sii socdo waxa ku soo qatimaya dadku markuu horeyso waa inay horta wadaniyad yeeshaan aaminaan dalkooda ama foorarka ka shaqaystaan ama qaab kale ha u shaqaystaan
horta waa in aad leedahay waxaad cunaysood raadinaysa wax ka weyn waa birijiibiyada adiga laftaada ka weyn waxa kaloo ka weyn dhulkaaga wallaahi ina nin dhulkiisa ka tago ula faa'iido keeni hal kelmad aan ku soo qatimaya nin adeerkeeya waagii guulwadahu soo baxay guulwada loo qoray waxa la yidhi qof kasta oo qaldamo ama xoolo ama dad waa ganaaxiisa maalintii dambe u baxay beertiisa uu tagay beertii bannaankeeda soo joogo wuxuu arkay rati ku jira beerta waa fiiriyey ratiga markuu beerta ugu tagay dhacay soo geli waxuu keenay meeshii lagu ganaaxay ratiga asaa iska leh beertana asaa iska leh laakiin waxa la yidhi wixii qaldamoona ganaax maalmahan waxaan maqlayay nin Soomaali Kenyaana oo anigu Soomaaliya nahay badda Soomaaliyana Kenya leh war halmeena ma iska aamuso yiraahdo anigu Kenyaana nahay waa adeerkay ratigiisii ganaaxo kale هذا هو ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد ها هذا هو تكلم هذا هو تأمل هنا